arbacadii la soo dhaafay ayaa ciidamada kumaandooska ee xoogga dalka oo ku socday hab qorsheysan waxay gudaha u galeen degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellada Hoose oo ay ku sugnaayeen markaa dhigmiiratada al-shabaab laakiin argagixisada ayaa ka carartay cudurda ciidankaasi oo xaqiijiyay gacan ku haynta degmadaas muhiimka ah. degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellada Hoose waxa ay 75 kiiloomitir dhinaca qorxo dhaca ka jirtaa magaalada Muqdisho. dadka deegaanka noloshooda 80% waxay ku tiirsan yihiin beeraha halka 20% ay xoolo dhaqato lagu tiriyo. al-shabaab ayaa sanado badan ku hayay shacabkaasi gumeysi. shacab badan oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa muujiyay dareenkooda ku aadan in laga dulqaaday nabadiidkii cabsigelinta iyo wax soo saar la'aanta ku hayay. laakiin waxaa muuqata in dadka deegaanka ay u baahan yihiin caawimaad in ay dib ugu laabtaan tabcashada beerahooda. meesha rabna waa ka bixi karnaa xilliga rabna waa soconayna cid wax noo geysada inuu dhaqmay ciidamada xoog ka waran ma dib uma arkin anaga hadda labadan bari ganacsiga hoogo xirnaa hadda maanta aad loo kala socdaa maasha Allah naas wallahi dhibka oo aragtida laaskina hayaan ay anshuurtaas oo nanto dalka baad billo hadis isku qaado dadka falin aruuriye dad toltolin hiriirkii may illa abkiiraas كيري جراسة إلا كديب لكن دينس أو جاب لكن لكن دينس مسدور كلي موي أمسل لينجاده General Odwa Yusuf Raagi taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka oo hogaaminaya howlgalka Awdhigle lagula wareegay ayaa ku amaanay saraakiisha ciidanka kumaandooska guusha ay ka gaareen. waxa uu carabka ku adkeeyay in gobolka Shabeellada Hoose aysan sii wada joogi doonin argagixisada al-shabaab. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markuu guto waajibaadkiisii gaarana meelihii loogu tala galay asigoo muxuu ahaa ay sheegay runtii aysan ka muuqan wax xabsana kana soo hooyo guulo muxuu ahaa ay sheegay la taaba karo in maamulka haddana sidoo kale asaguna ay muxuu ahaa ay sheegay hoolihiisa si wanaagsan habsami leh dib u dhacan lahayn waqtiga loogu tala galay ay socdaan ay muxuu ahaa ay sheegay maanta halkan ay noogula sugan yihiin taasuna waxayna tusinaysaa runtii nuguna sii dhiirigelinaysaa inaan gudano waajibaadkan hor yaala waxayna tusinaysaa inaan muxuu ahaa ay sheegay hawlaheena aan ku qabsano si habsami leh oo aan muxuu ahaa ay sheegay aan marnaba aan muxuu ahaa ay sheegay aan lahayn kala go dhinacay doonto ha noqoto ama dhanka ciidanka ha noqoto ama dhanka maamulka ha noqoto. waxaa muuqata in si isku xigta gobolka Shabeellada Hoose looga sifeynayo al-shabaab. hore waxaa looga saaray deegaanada Bariire, Sabiib Caanoole iyo Macalinka. Awdhigle oo ugu dambeysay waxa ay u ahayd saldhigga ugu weyn oo ay ku aruurinayeen lacagaha ay ku sheegeen sakawaadka baadda ah. Maxamed Xasan Cali, idaacadda TV qaranka, degmada Awdhigle, gobolka Shabeellada Hoose.